السلام عليكم. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. culamada hadday joogto waxay ahayd in iyagu tilmaamaan calaa kullin ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aanka wuxuu inoogu tilmaamayaa aayadda sheekhu akhrinayay ee rabbi uu leeyahy kutiba calaykum asiyaamu kamaa kutiba cala aladiina min qablikum lacallakum tattaquun. waxaa laydinku waajib yeelay soon sidii dadkii idinku horreeyeyba loogu waajib yeelay lacallakum tattaquun ay kay tattaquu si ay ilaahay subxaanahu wa tacaala uga cabsataan ama cabsida rabbi a u gaadhaan. ramadaan fadaa'isheedu in badan baa maqasheen baan rajaynayaa, waana bil kow ah misfaat ruuxiya. waa biluu qofka muslimkii u sahay xidha inuu dembiga iska maydho. waxaa inoogu dhib badan ee dunida inaga haystaa waa dunuubteenna. aakhiriya adduunbana waxaa laynagu abaal marinayaa inta badan waa dunuubteenna, wixii aan rabbi inaga dhaafa mooyaane. haddaynu heeriyadaa iska rogno oad xalay dhalaydee soomaalidu sheegaysay ka noqotay dunuubta, waa waxa ugu weynaa alla loogu dhowaado. أحد العلماء waxaa la weydiiyey tasbiixda iyo istikfaarka keebaanu horraysiinaa bay dhaha ama keebaa fadli badan. markaasaa wuxuu yidhi dadka dunuubtu ku badan tahayna istikfaarka u roon buu yidhi, dadkay dunuubtu ku yar tahayna tasbiixaadka u roon. waayo waxay adigoo uskagle dee la isma cadriya buu tilmaamayaa inaad ismaydho oo marka hore uskaga iska rogtaabaa roon. nabiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo tilmaamayaa ramadaan in ilaahay ku dhaafo ramadaan ilaa ramadaan wixii u dhexeeyay in ramadaanta lagu dhaafo. waxaa kaloo nabigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam habeen kastoo ramadaan soo gelayso in dadka badh laga xoreeyo naarta oo ilaahay subxaanahu wa tacaala dembigooda dhaafo. waxaa kaloo nebigu uu tilmaamay qofka sooma in ilaahay dembigiisa dhaafayo. waxaa kaloo nebigu tilmaamay qofka iimaanan waxtisaabana tukada habeenadaasi in dembigiisa la dhaafayo. waxaa kaloo lasoo tilmaamay qofka habeenka laylatulqadriga si gaara iimaanan waxtisaaban u kaca in dembigiisa la dhaafayo. idan ramadaan oo dhammi ama soonkeeda ha noqoto ama qiyaamuleylkeeda ha noqdo iyo salaadaha habeenkii la tukanayo ama habeenka laylatulqadriga ku jira ha noqdo, dhammaanteed inay tahay wax qofka muslimkaa ilaahay subxaanahu wa tacaala dembiga uu kaga dhaafo. dunuubtaynu galla waa tiro badantahay, cibaadaadkaynu la nimaadnaana kuma wada filla. oo nebigu wuxuu tilmaamayaa salaad ilaa salaad baa dembiga lagu dhaafaa. haddana wuxuu nebigu tilmaamay jimce ilaa jimce baa dembiga lagu dhaafaa. haddana wuxuu nebigu tilmaamay bil ilaa bil baa dembiga lagu dhaafaa. waxaa laga yaabaa inaad su-aal isweydiiso oo salaad ilaa salaad haddii dembiga la dhaafay, jimcuhu muxuu maydhayaa ilaa intaasoo salaadood baad soo tukatay? ama jimco walba haddii dembiga la dhaafayo muxuu maydhayaa ramadaanta marka la gaadho? cibaadaadku aynu samaynaa ma aha sidii la rabay. nabigu wuxuu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam mid baa salaad tukada oo salaadiisa aanan helaynin ilaa cushuruha ama thumunuha ama tusucuha iyo wax la mid ah. idan waxoogaaga jajabka marka laysugu kaa biiriyo kolba inbaa lagaa dhaafayaa. hadday wada dhaafi kari weydo ta kale jajabkeeda lagugu sii daraya in kalaa lagaa dhaafi. hadday ilaa jimcaha gaadhi weydo waa laysugu kaa biirin. idan waxaynu samaynoo dhammi perfect ma wadaha, halkii qimada ma gaadhsiisna. laakiin waa waxyaabo qofka muslimka hadduu ku dadaalo dhammaantood ilaahay dembigooda ku dhaafayo. dee maantana waaba ogtihiinoo qoladan caafimaadka ka warrantay iyo waxa kane dee asawm ilmutaqatic sooma maqashaan in badan intermittent fastingka sheegaan soonta googo-an iyo caafimaadka si wax uga taro. bale ilaa xad bay hadda tilmaamayaan. waxaan filayaa nobel pricekii 2016kii la qaatay oshua odaygii jabaniiska ahaa wuxuu ku qaatay soon bay ahayd
وها قفك بني آدم كأي دفاعي سيو صار نوليسا إيو شركي سيو عصبونيسيسا إيو وحبضا إذا وحلنا الدنيا آخرة بوت كفايديسا الدنيا عافمات بات كهليسا توقو بضان لسالة الماما يو آخرنا الدنبي قال غضافا وأنا كان نبي كنت الماما يحدث قدسي إنه إلهي لي هي أعماشك لو دم بني آدم كاسكال الصون كمو يعني صون كسيارة على با إلهي يدي وأنا أجزى به محل لو يدي بي علماء يدهان صون كإلهي باله كوا كلابا إلهي باله صلاة با إلهي درتي waxay yidhahdaan waxay ka baxsan tahay qaacidadii ahaa alxasanatu bicashri amhaaliha ilaa 700 nusuustu sheegtay ayay iyadu ka baxsantay bay yidhaahdaan oo haddii waxyaabaha kale 10 laab lagugu abaalmarinayay ilaa 700 jeer la gaadhayo iyadu waxay yidhahdaan qaacidada way ka baxsantay ajarkeeda ilaahay uma garanaya subxaanahu wa tacaala idan waxaynu leenahay waa waqti aynu u baahanay inaynu diyaargarowno ninka taajirka ahi wuxuu diyaar garoobaa mawsamka wax la gato saaka maaha kadaajirka ahayda waqtiyada uu isleeyahay wax badan baa laga gadanayaa buu alaab badan soo jamalaystay ku talagala qofka muslimka ahi waqtiyada dambiga xooga loo dhaafo inuu diyaar garoobaa ku haboon acmaasha kale oo dhan uu iska fudaydiyo si uu camalkaasi u dhammaystiran karo marka bisha ramadaan inaynu ku talagalno oo intaanay soo galinaynin u diyaar garowno u diyaar garowgeennuna inaanu noqon hurdo badan iyo fasax badan ee inuu noqdo juhdi badan iyo camal badan oo diineed inaynu la nimaadno dadka badh baa ramadaanta waxay ugu diyaar garoobaan bariiskii reerku cuni jiray bariiska tiro badan hilibkii la cuni jiray hilibka tiro badan kaama ha diyaar garowga ka warramaya ramadaan baa waxaa loo soomayayba in la gaajoodo in cunada lasii badsado looma xoolo guranaynin waxaan rabnaa inaynu u diyaar garowno cibaado badan inaad samayso bishaa inaad cibaadaysato oo isku daydo inaad ka bixi karto bisha iyadoo ilaahay dambigaaga dhaafay وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين